السلام عليكم maalin wanaagsan asxaabta dhamaantiin waa idin salaamay waa abshir oo idin wada muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo topic aad xasaasi ah waxaan ka hadlaynaa bariis iyo baasto maxay cilad leeyihiin waxyaabaha ugu badan ee dadka yiraahdaan waxaa ka mid ah bariiskii baastadii ayaan jaray haddana miisaan miiga dhacayo horta number 1 waxaan rabaa inaan xooga saaro ama aan ka hadlo bariiskii baastadu problem ma aha number 1 waxaa waaye Soomaaliya markaa joogno qaabka loo karinayo waa problem because saliid tira badan lagu darayaa. Number 2 control aan qaabka loo qaadanayo waxa arkaysa saxanka in 90% uu bariis ama baasta yahay control aantaasna ayadana cilad ay keenaysa bariiska markii aan ku hormarno bariiska carbohydrate source fiican waaye ma either white rice ama brown rice ha ahaado uu fiican yahay wuxuu ka mid yahay cuntooyinka jirka sida tartiibta uu burburiyo yani dheefshiidku uu tartiib u shiido taasoo macnaheedu ah inuu energy ku siiyo maalinkii oo dhan baastada nooc ka mid ah processed waaye laakiin waxaa jira whole grain pasta wax la dhaha jiro ayadana baastadaas whole grain markay tahay grainiska caadiga laga soo sameeyay ayadana nooc fiican oo carbohydrate ka mid ah waaye marka bariiskii baastada problemka ma ahane problemku wuxuu yahay number 1 qaabka oo karinayno wuxuu sidoo kale problemka yahay control la'aanta qaabka aan u qaadanayno waxaa la rabaa waxaan in aad ku qaadatid adigoo bariis iyo baasta cunaya ayaa miisaan ridi karta haddana maxaad ku qaadanaysaa waxaa loo baahan yahay inaad ahaatid energy deficit maxaa la yiraahdaa waa markii oo jirkaaga inta soo galaysa iyo inta ka baxaysa ay badan tahay calorie waxa loo yaqaan calorie waxaa la dhahaa energy-ga laga helayo cuntada aad cunaysid soo mar walba aad calorie badan aad qaadato oo dhaqdhaqaaqaagu yaraago fadhigaagu uu bato jimicsigaagu uu yar yahay xataa cuntadaada healthy source hadday ka imaanaysa you will still gain weight miisaana kugu kordhayo marka waxaa arka dadka qaar oo dhahayaan bariis iyo pasta sidee diet geli karaan bariis iyo pasta diet way geli karaan aniga dietkayga ama cutting aan ku jiro ama aan maxaa la dhahay bulking ku jiro yani any diet markaas aan ku jiro never bariis ma joojiyo and I'm not fat sababta ma taqaanaa because number 1 si fiican u karsadaa saliid badan kuma kariyo number 2 control ku qaataa yani saxankayga kaliya bariiska kaligiisa kama koobno waa fahmaysaan oo maleynaya marka cilada ana bariis iyo pasta marka maqasho ha fiigan problemka bariis iyo pasta ma aha problemku waa control problemku waa qaabka u qaadanaysa problemku waa qaabka loo karinayo marka haddii aad si fiican u kariso still bariis iyo pasta diet-kaaga kamid ahaan karaan marka aniga markaan qofka diet ku sameynayo waxyaabaha aan su'aalaha weydiiyay kama waxaa ka mid ah cuntooyinka jeceshahay because the best diet is the one that you can follow diet kan ugu fiican waxaa waaye midka joogteyn karto diet haddii aadan joogteyn karin it's not going to matter sababtoo ah anytime soon waa joojinaysaa because cuntooyinka aad cunaysid ma jecelid marka aniga mar walba waxaan isku dayaa qofka cuntooyinku jecel yahay inaan diet-ku ugu soo daro si uu mar walba uusan u tabin cuntooyinkaas hadda bariis iyo pasta aad jeceshahay still diet-kaaga kamid ahaan karaan laakiin maxaad ku qaadanaysaa control ku qaadanaysaa waa fahanteen oo maleynaya control markaa ku qaadatid adoo bariis iyo pasta cunaya aadan still weight loss sameyn kartaa guys bariis iyo pasta ayaa laga fiigin marka haddii aad jeclaan lahaydeen step by step diet workout plan ila soo xiriira help you intaa ka hor waxaan idin leeyahay guys mac salaamo bye bye by the way don't forget Malifit garamadii jiimka finaanadihii August diyaar waa helaysaan tayada yani xooga saarnay waxaa waa tayada markaad gashato adaa dareemi doona dharka qaar waa aragtay oo hal mar haddii aad ku dhidido oo saan u kala jiido kala baxaya isku soo laabanaynin waxaas waa ka fikirnay waxaa idiin keeni doonaa wax aad u tayo fiican hadda waxaan wataa waa kaa Malifit